Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walba aad naga daawanayso. Kusoo dhawaaw sheekadii Jar-is-Xoorkii Yaraay qaybteedii 7. qaybta 6 ee sheekada waxay inoo joogtay markaas qoladii kale ka fishay in ay halis kaga timaado oo foojignaan iyo colaad kala gashay. qaybta 7 waxay inoogu bilaabmaysaa haddaba markay wiilashii tageen buulkii loogu talagalay in ay seexdaan ayaa Anwar saaxiibadii u sheegay oo yidhi war mid baan idin leeyahay si fiican ii dhegeysta. shaki waxaanu ku jirin in meesha tan markab ka dhow yahay. qoladan iskiimooga ahina ogaan bay u dafirayaan waayo si uun bay ugu baqanayaan in aynu markabka wax ka ogaano. dooliyihii Siraaj baa isna hadalkii qaata oo yidhi runtu waxay tahay in meesha tan markab ka muuqday labadeeda indhoodna waan ku arkay markay showladiisii sii libdhaysay. waxaase nimankan iskiimooga ah ka muuqday oo aan qofna ka shaki qabin in ay been cad indhaha inoo saarayaan, inkasta oo aan la yaabanayo waxa beenta ku kallifay. cali baa isna hadalkii ku dambeeyey oo yidhi waan idinku raacsanahay sida aad sheegteen, waxaanan aaminsanahay in sir halis ahi ku jirto. waxa ku kallifay ninkii odaga ahaa ee Naajuug in oo been inoo sheego, inkasta oo sidiina oo kale aanan garanayn waxa arrintu ku kacayso. hase ahaatee taa ku daali mayno. waxaase ka daran in nimankan aan martida u nahay inaga shaki qabaan oo aanay inagu kalsooneen xagga nabadgelyada. mar hadday taasi dhacdayna waxaan muran ku jirin in inagu naf ahaanteenu aan halis ku jirno. marka waxay ila tahay in aan digtoonaano. habeenkii halkii bay wiilashii ku baryeen iyaga oo baqdin iyo walwal ka qaba in iskiimowgu ku soo guureeyaan oo ay qoortaba ka jaraan. baqdintaa awgeed inankii Anwar laba indhood iskuma geynin habeenkii oo dhan. sidaas oo kale ayuu duuliyihii Siraaj u soo jeeday oo shanqarta u dhegaysanayay. markii waagii dilaacayna waxay ku tashadeen in ay tagaan halkii dayuuradu fadhiday si waxa ay u soo qaadan karaan uga soo qaataan. waxaana la raaciyay koox iskiimowga ka mid ah oo ilaaliso. markay goobtii tageen Siraaj ayaa wuxuu isku dayay inuu hagaajiyo dayuuradii. nasiib darrose shilka gaara dayuuradda ayaa weynaa oo meel oo kaga hagaago ayuu garan waayey. hase yeeshee maniyad jabin wuxuuna isku dayey in raadiyoogii oo sameeyo, bal haddii oo xeelad kala keeni waayo ay ugu suurowdo in uu taar si uun ula gaaro garoonada dayuuradaha kuwa ugu dhow oo dabadeed loogu soo gurmado. waxaase kale oo haddana soo baxay in halkii dabka dayuuradda dhalinaysay ay baaba'day oo aan markaa sinaba raadiyoogii loo suubin karin. dabadeed intuu madaxa lulay tiiraanyo awgeed naftiisii la hadlay oo yidhi ma waxaana loo qoray in aanan sinaba ugu baxsan lamadegaankan ciirsila'aanta ah. markaasoo Anwar oo yidhi oo miyaynan markabkii sheedda inooga muuqday haddaynu gaari karno ku baxsan karin. cali baase afka goostay oo yidhi erey dambe oo markabka ku saabsan ha soo sheegin, sababta oo ah waad ogtahay qoladan sida ka muuqata ma doonayaan in aynu haba yaraatee waxba ka ogaan markabkan isaga ahi. markaa iska jir inaad sheegto ha inugu dirin nimankan. maalin labaad iyo maalin saddexaad ayaa wiilashii halkii ugu dhammaatay iyaga oo noloshu ay kula dhaqan yihiin iskiimowgu tahay mid baqdin iyo kalsooni darro ah. mar ay dhammaantood la ogeyn waxayse iyagu kartidoodii isku dayeen inay nimankii u muujiyaan weji furnaan si ay ugu bi'iyaan colaadda iyo uur xumaanta. hase ahaatee nimankii iskiimowga ahaa iyaga xaggoodii kalsooni iyo aamin wuu ka dheeraaday. waxay ula dhaqmeen yaryarkan ilaalo isdabajoog ah. isla wakhtigaana wuxuu odaygii reerku amar ku bixiyey inay koox farsamayaqaan ihi diyaariyaan carabad weyn oo ay ku guuraan martidu geesana meel allaale meesha ay doonayaan. ujeeddadana waxay ahayd marti aan la rabin oo la iska diraayo. dariiqad kale oo ay ku jid maraana ma jirin. intaasi waxay noogu soo dhammaaday qaybtii 7 ee sheekadii Jar-is-Xoorkii Yaraay.